Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Today, our last day of Sha'ban, inshallah. And Ramadan gonna start, inshallah, tomorrow. Marka, ummadda Islaamka soo duceeya, inshallah, meel kasta joogtaan. Ilaahay salaadii Jumcaha waa laga soo baxay, alxamdulilah. Waa laga wada kulay. Marka haddii khaasatan Falastiin, Ciraaq, Afghanistan, Soomaaliya, Suuriya, Suudaan, Pakistan, Libiya, kulli Yemen, inshallah taala hala wada duceeyo, inshallah. Waxaa haysto dabin ay lugahooda ku doonteen ayaa wada haysta dhammaantood. Reer galbeedka ayaana mataqaana dhammaantood dabin geliyey. Ayagaana qoorta gasha dabankaas. The more aad u dhawaato reer galbeed, the more problem uu soo dhawaada weeyaan. Marka inshallah taala soo duceeyo ummadda islaamka, inshallah taala meel kasta joogteen in ilaahay Soomaaliya boqolka boqol muslim ah inkastoo diinta islaamka u dhaqmin ayaad arkaysaa oo lagu leeyahay jihaad baan u nimid. Subxaanallah, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Ushaad furtaa qof muslim ku dhacayso. Waa arbushaad, waa daalimiin. Waxay u diidan yihiin inay nabad hesho kaliya. Dul bay odaygana ku dirsaday, waa la soo khalday. Macnaha meesha looga baahan yahay in loo dagaal tago oo daalimiinta godkooda ah haddaad aadaysiin awood u leedihiin waa Ingiriiska, Maraykanka iyo ma garanaysaa Israel. haddaad awood u leedihiin ka leexdaa ku meeraysan wadamada islaamka. wadamada islaamka dhibaatada ka daayay walaalayaal, insha allah tacaala. haddaad doonaysid islaamka inaad ku qalmaysaan oo dad dhibaato ka dulqaadaan, waa in meesha sarta ku qorsanta wada garanaysaane aada insha allah tacaala ummadana ka dhaafa dhibaatada. dadkan la midooba, dadkan nabada ugu daaqa. idinku markaad dadka la midoodin oo idinku laydinka ammaan helo oo dalku nabad naqanaya, idinkaba amni darro sababaaye. ya marka insha allah tacaala.